السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيرتها ما تب وجددا أنو نمد أهين إنه باغ النبضان وديره إن يصير لود من لها لبعتها كشفت الأسعار مركب كوبان أنا أقول هذا أيوه أفكار حكومتها يا شعب السومالي aad baan uga xunnahay dhibaatada ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intay ku dhimatay intay ku dhaawacantay in loo bogsiiyo waxaanu aragnaa kaa dhibay oo kugu dhibay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan intooda badan gobolada oo dhan halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalnay ilaahayna waa ka barinay dadkuna u wada jeeday waxaan is leeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waa la isla qaatay maanta hadalkeenu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhdii muxuu dhacay waxa weeye inaynu xal u helno xabadda socoto xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaan intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aanay jawaab celin in ciidamada lasoo weeraro oo aanay difaaca ka bixin inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka gadoodsan soo gaaro in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadkaa shicibka aada soo dhicin waxba labanaan harin sababta taa loo yeela waxay ahayd caqliga mantiqiga ah bini aadamku balaaga aragto laguma celiyo maanta laga fili maayo aniga raggeena midka ah masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyey si aad barra inaanu cid kale ku samayno loo quuro annaga laga fili maayo diin ahaana looga fili maayo dadnimo ahaana looga fili maayo waxay gaadhay wasiiradu dharkay ku jireen markii ciidankii soo gaadhay ee difaacina dhaafay ina sulub waa joogaa ina kaahi waa joogaa koore waa joogaa inaa amarku siiyey maxaa u baxaysaan dee fadhiya dhalinyarada waa lalaya hala idin laayay ilaa waardiyooda ina dila iyagoo taagan meesha dulqaadka ku ka weyna waa sii muujinaynaa waan kusii dadaalaynaa waayo dadnimada ayna faraysa waayo aragnimadaana faraysa waxaana qabsaday oo ciidanka qabsaday dhibaato u baahnayd inuu ninku naftiisa un huro eanu wax kalaba qaban karin si uu nabad u helo dad cadhaysan oo la gaadhsiiyey heer aan nafta hur oo xabadda isu dhig dad cadhaysan oo le waa inaan wada dhimanaado qofkaa isla qaxina dad aan weerar kala joojinayn kaa dulka hubbaabaa kor yaalla ciidan baa ku hor jooga hala gubato dad laga dhaadhiciyo ogole hargeysiba way gubato wararteen laascaradooda baabirin ah waa dhisan doonaa horta aynu dagaalano unu oo dhalinyara raygaas waxaan u malaynaya inuu qalad yahay hargeysa cid aan u tulayn oo xoog ku muquurinaysa oo aan lexjeclo kamid baa u timi laakiin nin kula garanaya oo shalay dadaalka ugu badan ku bixiyey si uu reer laascaanood dhexdooda u heshiiyo oo ciidanku shalay ku dhintay oo ku dhaawacmay dagaaladii ka dhex socday laascaanood beelooda waa ciidankii 13 sannadood ku jiray nabadeynta laascaanood waa ciidanka cid walba u qiraysay dhaqan ahaan aslub ahaan isbiri ahaan lexjecel ahaan xaq lagama filaayo inuu ciidankiisa dadkiisa usoo jeediyo quri maanta ta dhacday waxa weeye markaa ciidanka raas ku kala joogsan weydo xataa diinta difaacu nafsiga ku ogo waa dhacday marar badan oo ciidanku u jawaabeen si ay isaga joojiyaan dad aan shicib ahayna meelo badan oo kale ka yimid oo hub waaweyn kula dagaalamay halkoodse mar quran weerar may qaadin caalamkana waanu sheegayna idinkana waa laga sheegaya
mana qaadana weerar dambe difaacaasaan ku jirina inta nabadda la helayo waayo waa dadkaygii dhiiggaan u horana oo aan u qaadanana inana weerar alxamdulilah maanta waa la soo ogolyahay in nabadii garaadadu way qaateen joojintii in la galo oo nabadda dowlad ahaan dad badan baa igu calantay aniga iyo dowladdaba maxaa ciidanka meesha loogu hayaa dowladdu maxay shuruudaa nabadda u qaadanaysaa miyaa isdhiibteen miyaa laydinka adkaaday waa reelaan caalad inay naga adkaadaan oo aanu heshiino meel kale tegi mana ayaa ka warsan anagoo isku baaba'da ciidanku halkiisu fadhiyayaa nabad buu ku fadhiyayaa amarkuu qaadanaya garaadadu ciidamadii amar way siiyeen intaan ogahay dhammaantood inay xabdi joojiyaan laakiin dad badan oo bulsho oo wada cadhaysan oo hubku gacanta u galay oo kala jaajaada oo waxyaalo ka socda in badan oon iyaga maqlayn baa joogta oo jiraysa shacab ahaan soomaaliyada waxaynu leenahay kuwa inta aynu gaarayno inta la isla afkansan garaadada iyo dadka reer haldoorka waxay talay nabadda inta la isla gaarayo inaynu sharwadayaasha wada aragno ku wada jeedsano waa adkaysanaya nabadda u dul qaadanay reer somaliland ma kala adkaadaan reer somaliland ma kala adkaadaan isma xaqiraan ninna nin ma jiiro waa walaalo iskhilaafay khilaafkan way isaga imanayaan maxaa inoo dana odhanaya nin iga horreeyey baa sheegay haddaba waxaynu u baahan nahay khasaaro maanta intaa gaadha nagu filan kolley waynu heshiin doonaa waa sida ay tahay adduunka kuwii iska laayay malaayiinta heshiiya yukrain baa maanta ugu culisa adduunka oo dagaalkaa socda heshiis baa ka dambeynaya dagaalkii labada adduunkaynu ogna wax ka dhacay vietnam iyo maraykan baynu ka ognahay waxay ka dhacay innaga dhexdeenu ognahay hargeysa burco sool inaga oo somaliland oo dowladda intiiska ka dhimatay khasaaraha baynu ognahay walaalow shaydaan maalin axmed baa ka dambeysay inta aanu dhimashada iyo burburcin in la heshiiyaa wanaagsan reesol waxaa leeyahay ragga talinaya kolley waa la heshiin doona kolley walaalow shaydaan baa dhexshaa ka dambeyn doonta kala tegi mayno taladu waxay tahay khasaaraha ha yaraado intiina gaadhay ha ahaado wixii dambe ee khasaare dil iyo burburna aan joojino wadahadalla aan bilowno madaxamadku iyagaa noo yimid wayna canaanteen maxaa la qabtaa baa la yidhi arrintii ugu adkayda madaxdhamadu idhahdaan ku heshay oo iga qaateen israaca labaatankiina ugu waaweyn ee hebel iyo hebelow calan cad qaada laascaarood gaal ha laydinku laayeen markaasaa nabadda la helayahay dhalinyaradu dhibanaysaa maxaa uga baqanaysaa labaatan bay ahaanu way iga qaateen taa waanu gelayna maracad baanu qaadanaynaa waanu qaaqaynaa saasay ku timid sabir ka baxayaa deetana idhaahdaa warnadaan dooninaya ninkana dilayooda waana ku baxayaa waana u diyaar somaliland maanta maxaa mudnaanta koowaad in isweydiinayna maanta waxaa mudnaanta koowaada in xabadda soo la joojiyo oo nabad la bilaabo oo dalka nabad lagu soo celiyo oo wixii jira la bisleeyo oo la dhameeyo ayaa nabada ninka kala keenaya ee taa shuruud ku xidhaya ama laascaanood ha joogo ama hargeysa ha joogo ee dan uu leeyahay ka hadlaayo waxay doonta ahaatee ma aha nin somaliland la jeclo kara ma aha nin somaliland u daleynaya shuruud lagu xidhi karaa ma jirto somaliland maanta mudnaanteedu waa nabadda iyo xabad joojinta taasaynu ku midaysannahay ninkii diiwaana ma aha nin nabadooday waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo dhinacyo walba leh oo arrintaa ka nabad galay oo soo dhaweeyey oo somaliland ka baxsan oo arrintaa aada iyo aada uga qayb dhexda ka qaatay dhammaantood waan mahadnaqaya wixii fidmo ka shiday ee af soomaaliya ku hadla ee balaayo doonayna waxaan rajeynayaa inuu ilaahay soo hadeeyo oo aanay fidmada sii wadina ay soo dhaweeyaan goobta lagu shiraayo waa laga wada hadla odayaasha tegayaan waxay beegsanayeen laascaanood garaadaduna waxay idhahdeen war laascaanood dabadeeda ma xasiloono waa meel buu ka dhacay bal meel kalaa la diidayo waxaan filayaa in iminka heshiis lagu yahay in la degay yagoori oo ka dhisan yahay cisbitaal aada u weyn oo cusub oo ay dhistaan qurbajoogga reer yagoori oo aan hore ugu shirinay mar ay colad dhex taallay beesha halkaa dhigtay maxamuud gaal dhexdeeda oo 2 bilood loo fadhiyey oo dhowr boqol oo qof qaada inuu ku filan yahay in lagu shiro uu ku habboon yahay dadkii dhammaantii halkaa yimid
nabadda inoo taageeraya inta hadalka sheegtay xirinba maanta arintaynu ka hadlaynaa waa nabadda somalilandna taasaa u taalla nin walbana xil uu ka saaran yahay tabashada waxa la kala tirsanayo waxa halkaa ina geeyey waxaanu saa u kala fogaanay golaha laga sheegi doona madax dhaqameedkana kalsooni baan ku qabnaa inay nabadda soo celi doonaan oo xabad joojiyaan inay somaliland isu soo celiyaan ciddii eed gashay iyo waxa laga tirsaday inay qaadato haddii xukuumaddan lagu soo helo eedda la saaro tii ka horreysay qalaad la galo waa la isu garaaba waxayna tidantii waa hadlawaysa firadda aada iyo aad baa mahadsantihiin ilaahayna guusha waana siinayaa waananu xallaynaa anigoo isku kalsoon nabadaasaa inoo dana sheekh iyo shariif iyo rag iyo dumar iyo aqoon-yahan inoo bare mudnaanteenu waa nabad un aynu hayno nabadaasaynu wasalaamu calaykum waraxmatullahi